بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولالد موضوع كنت لقى لنا كورما والهجرة إلى الغرب ما لها وما عليها geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuu xuma dhalay geedigaasi galbeedka la degay loo guuray runtii malaadee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaan waxyaabo kooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqliga leh wax ku garan karo waa dad muslima oo Soomaaliya qeyrkeedba ah oo ka tagay dhulkii ay deganaayeen islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale deegaankay degeen ma aha deegaankii reer miyiga oo kale reer miyigu intuu guri ka guuraabo meel cidla oodan jiray meel aad oodanaysa maaha waa deegaan degan yahay oo nidaam leh bulsho dhisan leh qaab waxbarasho leh qaanuun leh system iclaama leh dad habaysan baa loo tegay qofka Soomaaliyeed ee meesha tegay wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta shay wadanada loogu necab yahay waa muslim deegaanadaasi muslimka lagama jecla bal haddaad tareenka ama baska fuusho tiraahdo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan muslim lama jecla waa laba waa nin madowgana lagama jecla waa saddexe waa laaji waa qaxoonti waa infandareere laajigana lama jecla waa afare waa wax mahayste waa faqiir bulshadaasi category-ga ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysaa idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yiraahdo waa muqtarib al-ghuraba waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay abwaanka Soomaaliyeed ee Hadraawi la yiraahdo Hadraawi tagay meeshaasi muddo yara joogay dabeetana wuu soo noqday ka waran baa la yiri wuxuu yiri intii aan meesha joogay waan iswaayay buu yiri isaga iswaayay wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayay يعني وغربة رسمية علماء الطب أي واحد هذا اغتراب كواحد في المعجم الطبي اغتراب كواحد هذا واضطراب وإسبرمبرين عقلي كل عضة أو كدك تقفكو إنه غريب كل نقطة ذات ديسة هي مجتمعي سبا نفتي هي مجتمعي سبا إنه غريب كل نقطة علماء الفلسفة أنا واحد هذا وقفكو جوهر كي سوايه صاد وضوب waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan bariga joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer hebel aan ciidaba ka sarreynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeyo isu haysta oo caynkaas aadahay waladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxa rumaysantiin bulshada tan nawcan ma siba u xaqirtaan nin madow oo tima adag oo waxba haysan oo ka hooseeyo Soomaaliga dadkana waxa bay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxa la idin haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaggo waxaad ka tahay muslim madow xunti wax ma hayste intaasaad ku astaysan tahay taasi waxay keenaysaa waxyaabo tiro badan leh balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo
aqliyaadka muslimka ay goormay galbeedka degeen waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay Yurub dagaalada gashay kadib inta badan hijrada ugu badan ee waqtigaasay tagtay dagaalkii koowaad dadka badh baa tegay se afwaajta ugu tirada badan leh kooxa ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyay dagaalkii labaad Yurub way dumtay oo iyada isdumisay wadannadii way baaba'een kadib markay nabadoodu dhacday waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan dabeetana waxaa loo baahday aliyadi alcaamila dadkii shaqaalaha ahaa ee wadannada wax ka dhisi lahaa markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh dadkaa hore waxay u badnaayeen North Africa muslimiinta degta waqooyiga Afrika Morocco iyo Algeria iyo Tunisia iyo بعض مصاري كمدة وقوية أفريقيا مسلم كدجة يبقى يقبضنا ين تركي الدولة العثمانية مركز شبتي وحي كدم بيجي تركي دد كهوري تجي ماشي وحي يقبضنا ين دد عن أقون بدن لهين مد دينه دي مد مادية طورة مرغمال دد شغالة oo guryaha iyo daaraha iyo tareenada iyo gawaadhida iyo waxa la dhisayo ka shaqeeya way u badnaayeen hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee wadannadii muslimiintana qalanqalka badani ka dhacay mar labaad baa Yurub waxa ku dhacday inay yaraato aliyad alcaamila gacanta shaqeynaysay markan dagaalmo laynin oo sidii dagaaladii 50 milyan ba ka hore ku madhaye dagaalamay laynin ee iyaga go'aansaday inay istilaan iyaga go'aansaday inaanay dhalin Yurub tiradeedu waxa laga yaabaa inay ka hooseyso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday Yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa ma sii badato halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa waayo labada qof ay isqabaan laba ma dhalaan marka general average la eego wadanka wadan walo Yurubaba Albania iyo Muslima marka laga reebo wadanada Yurub oo dhan isku dar meel labada qof ay isqaba marka wadanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto sadaradeed tiradu way sii yaraanaysaa kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan ama kuwa bensha ka galaya idan xoogii manpowerkii shaqeynaya uu soo yaraanaya taasi waxay sababtay yana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan labadaa waqti aynu odhan karno hijrada ugu badan waxay gashay qarnigii 20aad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii waana waqtiga ay dumeen caalamka islaamiga dawladda iyo dad badan oo ka tirsan generally dadkaasi maxay la kulmaan waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaa'irtooda soon iyo salaad iyo wixii la mida cidhiidhi ay ka gasho tamyiz fi العمل shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo iyo mushkilada tarbiya wa tacliim schooling system ki oo system gaalnimo u dhisan oo ilma ka soo baxa aanu noqonaynin qof muslima indimaaj ku dhacay iyo istilaab alhawiya assimilation iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii iyo afkoodii waayay mucaanaad nafsiya dadka oo nafsiyan u wada buka oo dareen uu ku jiro meel uu qariib ku yahay oo laga xoog badan yahay oo la yasayo la cadaadinayo la cidhiidhinayo ama systemka guud ha noqdo ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdo uu dareemayo buu ku nool yahay intan dambana waxa sii kordhay wixii 11 Sebtembar ka dambeeyay 1199 wixii ka dambeeyana waxa kordhay
إعلامka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yidhaahdo Islamophobia phobos af turkiga waxa la yidhaahdaa waa khawf la shucuuri غayr mubarrar waa qofku iska cabsanayo aan garanayn sababtu uu cabsanayana marka islaam marka la maqlo waa laga cabsanaya de qof laga cabsanayna cid soo dhawaysanaysa ma jira mambuud baatay dadka waaweyn waxay isweydiinayaan talo goor muqarxaya intaad baska ka degi doonto ma nabad ma kaga degi doontaa idan qof bulshadu soo dhaweynaysa ma tihid waxaana lagu shaabadeeyey wax allaaliya wixii xumo ah shawgeed waxaan leenahay bulshada muslimka ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliya ku ama aqaliya diiniya ha noqoto ama aqaliya cirqiya ha noqoto fil ghalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed kaljar iyo mid dhaqaalaba waxaana cidhiidhigaasi ku haya tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma إعلام أما ميديا آدو حق بدن أو دتك توجيهية هي نظام تعليمية أو قصبة أو الله دكتور أو مستمر وقفكو من حضانة أما كيندر جاردن لقى بلابا إلا يكر وسعري أما إلا طبعا كسنة أما سقال كسنة وهرية قصبة قانون نظام كوردن حدده ووح كستو أذكر وقادو قانون بكيا له ودنا قانون كود ولي بسليم باتشوكتان لكن ماشى حتى مقع قانون كيا له كسل وريه مقعيدا لما بيحي كرتيد وهو فاملي نيم اسكوا هداد مقع بدل يسو دادك مقع عالو دنبات كعود سانيسا إنا دين ودنا غار كود تستلا مقع بدل شعب وقول يناد بدشو لكن فاملي نيم كدو قورسا عدة له هوردن مثلا أنا مصطفى اسماعيل هارون باليدا هدان سيدا هارون بدل وحل وريه وإلا إعلامية هارون ضدك وطور من يقول لنا تقصى بيرته مركا لبعضنا اللعق بعد يعلنيسها قول أول بوين الله بقول يكون كرونسية هو ما قاعسي يعني لا يعني وحكست السيستم وحكست قانون بكيا لا مركا جوانب الحياة تردمي سيبي وقابي سنتا وطالة بلشدة مركا مسلم كيا مجتمعات كان للنولي عداد سيادية عديدية دا وقبضا بيلا كل مان oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya xaguu ka imanaya waxa kan qorayada qaarkood ay qoreen bay waxay yidhaahdaan afar eray baa kulmin kara al-iddihaad والتمييز والتضييق والاستفزاز bay yidhaahdaan afartaa eray ayaa ragga qaar wax qoraaleeyin waa lagu kulmin karaa waa cadaadis iyo midab sooc iyo cidhiidhin iyo istifzaas qofka oo la kiciyo laga cadhaysiiyo waxaan wuxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo مثلا tusaalayaal idin siiyo وأكتينو شعيرة إسلامية قيبة كميد وممنوع مثلا ودنا بدنا يوروب كميد وحي ممنوع النقاب كبردو إني سنقابته ودنا بدن بقانون كودا كودري إنه ممنوعية يوروب إن جنرال حجابك وحي استانوني هي استعباد للمرأة كبردني نتقوميستها دي حجاب أنت تتكلم قوميستين كم تهيبة قادرية مدحوينك يشهد رئيس الوزراء يشهد كم إذا كو خطبة ديني مرنا بدول كهروم مريون وحجاب أقبلها وح معقولة ما ساركوزي خطبة دي سيبك وجرتي سيدا مسلم كاللوغا عبسي قبيل اللي سيقفوا غينيو مثلا قوليها قالوا بدا قادة ستاتستكس قادة هي سويسرلاند وودنا دا قلنا بتقاليا بدن دوني دا الوتل ماما سويسرلاند بيكا قادين ستاتستكس شيغيا إن ملا ممنوعة مسلمين مساجد إني من نارد كتاجان بقول كيف الطبيعة كنت بايدها من نارد ضمب وين ودك اللي كتاجين هذا وضعنا ده ديمقراطية من نارد ضمب وين ودك اللي كتاجين قانونيا ولا ممنوعة يدو سويسرلاند يدقين أفر بقولوا كونوا قفوا مسلمي أفر بقولوا كون ومسلمات دقن وإنتو ضبضن أما يوروبيانا يوغوسلافيا دي هوري بربرتي
bosnia iyo dhulkaasi dhulkii burburay Yugoslavia la iska oran jiray ama Turkiga ka yimi baa degan waxyaabaha istifzaaska sameynaya waxa kamid ah dhaqanku siduu yaalo mesela ninka muslimka markuu yiraahdo gabadha ma salaamo ama gabadha muslimada markay tiraahdo nin ma salaamo waa critical ba wadanada qaarkood laga dhigaya iclaamka in lagu qoraabay u dhowdahay shaqada in laga eriyaabay u dhowdahay dhakhtarka aad u timiye ama dhakhtarada aad u timaatay ku gacan qaadi maayo inaanay kuba dawo yani waa wax fudud qof binaadam ayna dalkaas ka salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo hadaa tiraahdo gabadha ay ninku tiraahdo ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cidhiidhi inta 11 September dhacday in masaajida iyo maraakista islaamiga la muraaqabeeyo inay Yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa axsaabta ay yiraahdaan midigta fog almost Yurub hadda waxa ugu badan ee xukuma waa axsaabta fog axsaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadanada qaarkood ra'iisul wasaaraha bale xisbiga ugu xoogan bale oo wixii islaam u nisbo sheegto oo dhan ka soo jeeda waa tamyiz la isku sameynaya xagga shaqada oo mesela ururka dawladda Mareykan leedahay waa lajna kamida lajanta dawladdu leedahay lajna takaafu furas al-amal baa leedahay waxay ilaalisaa furas al-amal in dadku u siman yahay fursada shaqo si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir oranaya muslimka iyo wixii carab sheegta xataa غير muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xooga oo ah in la cunsureedeynaya ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihiin waa lajnadii dawladda tilmaamaysa September wixii ka dambeeyay mudaayaqaadku masaajida oo dawaaragtay masaajida qaarkood in hub la galo la laayay dadkii ku jiray ama se darbiyadooda lagu faygaro erayo nacayb oo karaahiye tilmaamaya lagu dhigo ama se dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqa loo soo diro la leeyahay waa laga takhalusaya ilaa ya maqlisa waraaqa in loo diray xataa kongareska tii gashay wadii Soomaaliyeed ilaahay kongareska gashay xataa hanjabaada iyada loo diray de qofka kongareska ku jira hadii loo hanjabay inta ka hooseysa maxaad u malaynaysaa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabiga sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga oo mesela hay'adka islaamiga ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxa sameyn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxa la yiri irhaab baa lacag siinaysaa bale wuxuu akhiiran saameeyay xawaaladii Soomaaliyeed oo la qofkii hooyadii $200 u diray meeshu marin lahaa xawaaladu lacagta ka qabata xagay marinaysaa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariyaa la laayay waa mushkilad taagan waxa ka muuqata ra'yiga galbeed sida TV-ga iyo raadiyowga iyo media iyo ay dacaayadka u wadaan sunnac ra'yiga binaadamka saa loo bedelayo mesela Almania Germany ay statistics waxay ka qaadeen 2400 qof baa la weydiiyay مسلمين تدوروا العباده هذا ما لقوا عديريا حريه العباده مسلمين ما مزيد من القيود ما لا صاره هذا حرر بدنو عدادينيا بقول كي بس ديد يكون تنبا جرمل قلبد يدي ها جرمل كبرينا يسووا كسي عسريسيبا بقول كي بشان يا 7.7 وليبا اي يدي هل عداديو وحاسي وحا اي تلماميا urura soo baxay leh kitaabka quraanaha la gubo oo inta meel cidla isla taagan kana ay shorteeda ma kitaab quraano la gubayo Mareykan baa lagu gubay Yurub baa lagu gubay waxa jira xamlaadkaasi masaajida qaarkood dadka lagu dhaawacay ama wax lagu leeyay iclaamkana isagu wuxuu u badan yahay waagi bariyaba in muslim la dacaydeynaya ku qorantay ama nabi maxamed wax laga sheegay ama diinta wax laga sheegay ama wax la mid ah ama system karahiyo colaadi ay ku jirto aad ugu jira ama isdira iyo xaqiraad ay ku badan tahay taa macnaheedu ma aha reer galbeedkoo dhameynay waalan yihiin
القوة السياسية وحلقة يابا انتو دبضان إني قوة عاقليين دادو حقردينيين دادو أركية قحنتيجا إني دنتو دو قاتنا ودنك وشقيان أيهين لكن سياسيين تدي الرأي العام كهدنا كما هو رمانكرو ومشاكل كتاجن بوحياي قفك سوق شوقة فوتينية وحزب وردية نمك سياسيين تي وحي أركيان نقالها ودنكو يدول النمادو ودنكو ينا يوبا هنتا يدد كان ينا قاطان لكن أحزابتي عنصريين تا يقولون أنك كلا وحي آخرين أيان ويرر بالغو يدينتيني كالجركيني أفكيني دقنكيني وحال الربا ماشا تانين بلي يرو مسلم لغا أساسه سادراد شعبكي ولا بغقلي سببتا وقيد بي حسابتا يمينك هاي وصابحيا ودادتكي بي وحا كنكو آخرين أيان مركا قوة عاقلة ويشرته لكن هدنا كما هورتاقي كرتو وحبضان أو شعبك لغوبو فيها مثلا لو آخرية ودنا reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gadisan yihiin intaa waxa raacda intaas waa duqud kharijiya intaa waxa raacda tamar darida muslimiinta oo kow dadka muslimka meesha tagay تعدد المذاهب والانتماءات العرقية والجغرافية واللغوية مسلم كما meesha tagay waa kala cirqiyaal usushoodu isku mid maaha isku afkuma hadlaan isma fahmaan madaahib fiqiyo kala gedisan bay sitaan ama madaahib caqadiyo kala gedisan hal tusaalaan ku siinaya dunida muslimka kale ka kaalay Soomaaliya way burburtay laakiin rabshaduhu waxay yaraadeen markii reer waliba meeshii uu dhashay qabtay meeshii aad u dhalatay markaad joogto dee tolkaaba joogo inta badan way iswaafaqaysaa Soomaaliya nabadeedu inta badan imka saasay ku salaysantahay maadaama sadexgalkii uu yaraaday cid waliba meesha ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqorskiga iyo iska jooga Soomaalida Yurub joogta Soomaalida kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeyay hal masaajid la isugu geeyo la yiraahdo halkan baa wada leedahay ama hal jaaliyad baa wada leedahay oo mid Soomaali weyn raadinayo oo mid Somaliland raadinayo oo mid Ethiopia ka yimo meel kale u wado oo mid shanta Soomaaliyeed la sheegay jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meel baa dagaal ka dhacaya safalawalka ragga ku jirun baa isahaya oo lacagta dira waa odayadan safalawalka ku tukanaya dagaal kasto Soomaaliya ka dhaca kuwan baa lacagta dira waa mushkilad kale maxaad u malaynaysaa marka aqraaqdi muslimiinta oo dhan kuwii Ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii Suuriya isku soo dilaa jooga kuwii Masar isku soo dila meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firqa iyo aqaa'ida Soomaalidu de ma yaqoonino Shaafiiciye oo iska caynkaas unba iska ahaayeen marka xaggeer la isugu tago wax walba waa la isku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soo warmiyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna ma hadad isku xidhan oo iscaabi kara ama wax iska caabi kara maalinta ilma Soomaaliyeed la qaatay ilma Soomaaliyeed baa la qaatay la leeyahay laakiin kuwa kale ilma Soomaaliyeed la qaatay waxdani kaga ma jirto maalinta ilma Bakistaaniya la qaatay waa ilma Bakistaaniya la qaatay kuwa kale waxdani kaga ma jirto inta waxa ka sii daran dawladaha muslimkuna iyagaaba aqaliyadka ka sii liito uma hadli karaan dema dawlad muslima oo dhan karta dadka muslimiinta Yurub jooga waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda inay ilaalisaan kuwa maamulayeen bay xaqooda ilaalin waayeen ama kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waxaan jirinayna marka boqorka ku oranaysa ma Sacuudigu uu hadlin ama ka dawlad walba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka firdhatay bay u doodaysaa xaqana ma jiro duwal islaamiyo lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka oranaya ma jiro intaasi waa inta guud ee muslimku oo dhami wada wadaago qadaayad muslimku kala wadaaga jira oo dhibaatooyin ka mid ah Soomaalidana laga yaabo inay gaar ku sii noqoto waa mushkilada huwiyada iyo mushkilada lugha ama aan idhaahdo mushkilada huwiyya oo afarta qaybood ay u qaybiyaan inaga laba xoog inoo sii khuseeya al-aqeeda wal lugha huwiyadu waa ID-gii bini aadamku lahaa identity-goodii waa aqoonsigoodii adigu waxa tahay qof muslima oo Soomaaliyeed
عقيدة إسلامية رميسا معتقدك أما عقيدته qofku nolosha wuxuu ka arkayo dhan waa wax maamula kownko dhan waxaad ka rumaysantay aduu waxaad rumaysantay ilaahay inuu jiro dunida tan samaystay bini aadamka keenay cibaadadiisa faray aakhira abaal marinaya janniya naari jirto waxaas aad ugu rumaysan tahay qofka halka ka tagay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin laakiin waxaad u tagaysaa bulsho aan diin kula wadaagin dhaqan kula wadaagin af kula wadaagin taariikh kula wadaagin taas waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo wax walba su'aal baa ka taagan waayo qofku markuu waddankiisa joogay environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan waxa asalkaa isku waafaqsan مثلا أركان الإيمان كوين اسكوا فقصني إلى إجريتان كيسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابك قرآن ملائكة آخرة القضاء والقدر أركان الإسلام كان لي حدام وحمد صوماليا ذا كمر ما يدركت مايا مركز حكا وتكتو انت بمرن بوغليه وهو ملتك الجراليسم والديميه دوني دون بميشة تاغن qofkii Soomaaliyada hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaabaa inuu cabaar sii joogo ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u haynin markuu tago isaga maxaa ku dhacaya inta uu maqlay dadkoolena uu ka maqlay bulshada isba weydiinayna uu arko isna waa rumeeyay wax daliile samuu baadhin waxa aqoona uma laha mid diineed mid filosofiyeed mid caqliyeed wuxuu leeyahay baabkaasi ku jira ma jiro waana saa dadku u badan yahay qof mutakhasis oo waxa kan si gaar ah u baaray mooyaane waa iimaanka mujmalka ee dadku u badan yahay iimaanka mujmalka hadii muran la galiyo maxaad ku difaacaysaa wax waliba uu muran galo kii weyna gartay ka yar ee inta kidan gaadhin la galiyo iskuul la galiyo halka ka soo baxay isaga maxaad ka filaysaa inuu rumaysto markaa ninka halka ka tagay ee weyni waa laga yaabaa inuu zinaysto laakiin isagoo u arkaya zinadu inay xumo ku dhacaytay inay dambi tahay oo hadhowna ilaahay uga cafi saanka ma ilaa wuxuu arkayaa waxaanu sameeyay inay tahay maxay dambi deetana ilaahay baa afis weydiinaya ka yar meesha ku koray kule waay ay dambi u noqotay cunadaba waa la cunaayay dumarka loo tago maxaa dhacaya oo arka bulshadatan wadanada qaarkood imika waxay soo rogeen wadanada qaarkood afar jirka in loogu bilaabo qurun qadhaadhka dhigisteeda afar jirka waxa lagu bilaabayaa carruurta meesha timi kani laba aabuu leeyay kani laba hooyuu leeyay kani aabiyo hooyuu leeyay ma taqaani waxa ilma laba aabale waligaa ma maqashay waa qoom luut ilma raba inay korsadaan marka registration ka marka la sameeyo iskuulka waxa la leeyahay laba aabuu leeyay hooyaba male isagu kanina laba hooyuu leeyay waa laba islaamada wada nool yana kan aabiyo hooyuu leeyay ilma carruur ee lagu soo tarbiyay classka kindergarten 4 year markuu marayo waxaan filayaa ingiriiska imka 2020 ga la bilaabaya systemkaas ku baranaya wax lagu baraya maxaad u malaynaysaa markaa dawladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida China imka wado China imka Turkistan sharqiya waa gobol muslim aha Turkistan dhul la yiraahdo muslimiin baa jiray bariga galbeed bay ahaayeen 1930 meelaha kan ayay ku duuleen Russianka iyo Chinese-ku midna Turkistan qarbiya buu qabsaday midna Turkistan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ahaa waa kuwa soo go'ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd China haysta China imka 2 milyan 3 milyan oo qof buu intuu ururiyay ba kaamam lagu guro waxa la leeyahay waa la humanize kareynay waa la bini aadamaynaya waxa laga maydhayaa aqoontiisa waxa laga maydhayaa diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxa la rabaa in la baabi'iyo waxa soo dhan laga maydho caalamul muslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxa la sameeynaya bay bilada bixinayeen
taas macnaheedu wax weeyaan wadannada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen wadannada qarbigiise ضغط المجتمع هي محاصرة الفساد للأسرة المسلمة أي عوامل ضاغطة من أجل تذويب الأقليات المسلمة ومحي عديدي قبل شيء إيوه فساد كرير كوردن دول بكا قوي غارساني وفاكتوريس كان صنايا إن يدتكم بالمان soomaalidu hadda xawaalay 30 sanadood ugu dambeeyay xoog u tagayeen milanku muxuu sababay marka milanku wuxuu sababay in ay wax badan waayaan dad badan inuu caqiidadiisii waayo dad badani inuu u noolaado sidii yoo qof aan waxba rumaysnayn qaar waxay gaadheen inaanay waxba rumaynin meelaha facebookyada iyo waxoogaa qaylqaylinaya waa ku aragtaan qaarna waxay u nool yihiin sidii oo aanu waxba rumaysnayn ku odhan maayo waxba rumaysni laakiin qaabku u nool yahay waa sidii oo aanu waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da'yarta ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya systemka waxbarasho ee waddanku leeyahay hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethics waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalinayn markaad ilmaha ku darto uu ka soo baxo wuxuu noqonayaa waxaa jiray nin gabyaayo philosoph oo muslima oo Pakistan meelaha u dhashay India Pakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen Pakistan ahaa Muhammad Iqbal baa la yidhaahaa waa nin double doctorate double masterate waxaa sita Cambridge University meelaha macallin waa hore ka 1905 kiibu macallinka ahaa waa nin gabyaaya markaas wuxuu ka warramayay caalamul islaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay عالم الإسلامي كردجان ذاتك أي صار تيه وحي سمينيسي وحده التعليم هو الحامض الذي يذيب الشخصية الكائن الحي ثم يكونها كما يشاء تعليم تقول وآي سيد اللغة على يقفك بني آدم كان نول هذا الله قابة يسيدي لدوني أنا بروفيسور كاسورة المامي education كونو يا معي آي سيد قفك انتو دلالية وحرب السنة يوردن كسو سارة قفك عليه waxaa jira nin gabyaayo kaloo hindiya akbar alilaahi ilaabaadi la yidhaahdo markaa wuxuu sawirayaa gabay sukhriye ah ayuu wuxuu ku sawirayaa in tacliinku wuxuu sameeyo markaasuu wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tegey maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii masar maxaa ceeb raacday halku caruurta iyo fircoonkii yidhi reer banu israa'iil wixii caruur ay dhalaan hal la soo ahayn wuxuu leeyahay maxaa ceeb raacday intuu caruurta leynay muu kulliyada u fura buu yidhi iyagoo si kale u dhintun bay u soo bixi lahaayeen yani iyagoo aan masri ahayn bay soo bixi lahaayeen kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in uu laayo waxay leenahay tacliimka noocaasi dhalinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guulaysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxaa meel bay iska dhigeen waa nin western oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick money bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilaa qofkii xirfad male waxba male klaaska tobnaad ama 12 ama 12 buu dirqa kaga baxay meel kale oo u socdaa ma jirto Soomaaliguna waa iska hanweeyo mushaharkan yar la qaataa kuma filla quick money buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdega ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka
dabeetana mukhadar iyo ijraam criminals iyo xabsiyo ayay ku dambeeyeen qaybina masaxaadka caqliga bay ku dambeysay Soomaalidu waxay ka mid yihiin dad yaga ugu badan baan oran karaa ee xabsi degan marka loo eego nisbada ay wadanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dad yaga aad ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yihiin walidaalika baa Soomaali badan oo iyagu istishaa jirta hadda galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo Soomaaliya ma maqashay qof Soomaalida xabad lagu dhuftay meeno qof meel iska soo tuuray مسلم مغليسي لكن حقه هو عادي هذا دو مغليسة إذا واحد دتك ودي وقيف سمين ددون أيضا تتيجي كلوبي انتو دا بدل دا يرتي دنبي واشرا مدن مساجد كو هاري لكن مستلي ماها هذا يورب ديغان كيدي محينو كفايدني محا حما محا سماء أن ويرا كوكوبا كتلمامو كو دلن يردي ويلونتو dhalinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu systemkaas ee dhalaaliyay waxbarasho ee la geliyay oo aanu jirin system islaami oo waxbaraya waayo system islaamiga ah meel baa waxa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yarba carruurtooda ka bixin karta saadaradeed dadka inta ugu badani public schools ka carruurtoodu dhigata laakiin ma tagaan islamic schools ku meesha uu ka jiro deynta ugu badanna kama jiro kalabaad madaaristu waa sabti iyo axad xogaa quraana la qaybsiya qayb markuu qaybana markuu teenager gaarana quraankana uu iska daayaa waanu ka lumaa de qul wallaad qaybtayna waxba ka arabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumeen qaliilan in yar baa badbaaday qoladii dhalinyarada u badnayd ee meelaha ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarrada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo 20 jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baan noo isku dhiibeenoo naaga cadcad oo iska qaawanaya waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarrada la xirtay intii la sii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkii baa ka dhaxay ku sii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intaan dhaxe iyada uu guban yahay oo waxbaanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba'een mostly waayo waxaa la geeyey dhul firidha dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badan oo ka midi way dumeen waa laga yaabaa haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriina hayee meesha tegey odaygii baa furay iyo islaantii baa la furay iyo waa wada maqasheen unbaan u malay nin badan oo ka midi guryahaasina mostly waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxaa laga yaabaa in isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saas baa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad matalan halka aad joogtaan waa Uganda soo maaha standard baa jira standardka qofka ka hooseeya waxaynu odhanaynaa waa maxay waa faqiir halkoona standardka life-ka caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa faqara waa daasoo kuwa lacagta soo dirayo war waa $100 oo ka ururiya carruurta cashadoodii oo waxoogaa ka shaxaaday ama kan uu ka shaxaaday lacag ma jirto waa un qof weyn oo waxoogaagii la yidhi carruurta ama meelaha ku gee ama halkan ku gee intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aabba gurigiinna ayayaan u dirayaa iyo adeer baabaahan iyo kan baabaahan ku soo diray ee ma aha dad hanti haysta weliba waxaa intaa u sii dheer xirfad ma leh xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh Soomaaligu
soomaalidu in general markaynu uga hadallo wax xirfadoo qofka soomaaliga uu leeyahay laba shay unbaa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood soomaalidu xirfad kale miyaa ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihiin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baaxmishtarka u badan baan arkayay safarka xaggaa kama socoto waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno adag oo aan kuu ogolaan inaad si fudud u soo gashaay oo cashuur iyo kanina waa dul saaran yihiin saa daraaddeed tijaarada soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa weeye waa maqaaxi yar oo soomaali wax ka gada intan qaxoontiga iyaba qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yar oo dirac iyo gogora diibinaya iyo intii yareeda soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya marka ma aha baac mushtar u jeeda waddanka inuu wax ka iibsado saa awgeed xirfaddii baac mushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana company weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin de quantity iibinaya saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saaraysa maaha xirfadda labaad ee soomaaligu uu leeyahay waa darawalnimo darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu bannaato yacni markay waddanka shaqa la'aani ka dhacdo dee dadkan qaxootiga iyo waxbaa shaqooyinka ugu horreeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yaro furantay iyagu kuwa sare u yaro kacayaan markaasaa waxa kuu bannaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo intaad mafiq iska qaadata xaadhi maysid waxay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhow baadna weydiinaysaa benshan iyo waxay waa inaad certificate-kaa seetaa system wax loo xaadhaa jira hataa haddaad tirahdaan dhulka masaxo ma suurtagalaha waa inaad systemkii dhulka loo masaxayay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh dadkan soomaaliyada sii yaacaya qof xirfad le ma jiro soomaaliga xirfadiisu ama waa zero ama waa engineer iyo tabiib iyo grade-ka sarena dee kuwoodii waddanka jooga haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadada dee muctaraf maaha marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiya waxaan waxba kama jirayaan waa kii waddanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sitaa waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa ilaa injineerada oo dhan waxa laga yaabaa inay taxi driverska ka mid yihiin waa engineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayay waa taxi driver waa bus driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogtaa marka waa foqoro dabaqada ugu hooseysa bulshada ay la nool yihiin maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunka ay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan sawgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la yidhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaante reer hebelka la soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is yidhahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheega waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa ilaa hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebela meesha haystaa marka dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo hadduu dad idiin yimaado isla dhexdhexaadii problemaa sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysatuu arkaa markaasuu is idhahdaa dhibibo waatane haddaad ka baxdo malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegay qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin dee waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal positive-kiina sheeg
محوية بوستيف كحلقة كجرا كو وحوقا قادر والله دو صادرين أما وضا يفر عرورة هيستوا فرتبدي فرنشي كان نقونا ينتي أي لا يرايا وحي اللي يرايا اللي سيسيري وكحيتشي وكصادري ويقولي أما قرى نقول يا ماشي أما هو يدي قرى لسا أما بادية كان إسلامتي يوم قال جاية أما حج جاية أنت أصلا عشان صماها أنت أصلا سيدي اللي كان إلهي ونوجي هي إن حارتي إن حلالت هينا أنا أضوه بين إن بدنو كم يدي حراني حلال وحين نقول الصو أنا أضوه بين كسواتشرة قضية اللي بعد بتشروه قبل الصومالية ده مسلمات ده دين تيدا كم من تدي شعار كإسلامي قابا يموتشي حجاب كايا مردا وين يتشي ديسو marka dad muslimiin oo meesha iska joogayo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka bad intii islaamka uun si haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaan intii xijaabka adkaysatay deewal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabanida wadanka kama jirin ta ugu badan ba khimaar yar ay madaxa ku xidhiyo shaari surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidata markay timi masalada xijaabka bulshadii kale way ku dhiiri gelisay waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cad oo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh yani dadkii kale oo maradan weyn ku soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha Soomaaliyeed way faafiyeen waxa kale Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masaajidda Yurub ku taala inta ugu badan leh bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi oo haduu bisha iska soomo inuu galaba xagga hore oo dadka tukiyo quraankaasna caam bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayaa in dhamaantood ay wada xufaadiyeen quraanka yaqaaniin عنصرك كلي الصومالي الدين هاني رميسنتين لقبتانا ومساجدنا وادسين وضنا داسي دمر كا الصوماليات بالذهب كود اسكا وروريي ان داليرا دا الصوماليات با بقول كبانديو بقول كدولار يكون كدولار بخيي بلشدا الصوماليات دارب بدن ومساجده انكستو ان كعبسي قبو inay sidii kuwii Turkida iyo Pakistan u dhisay oo kale inay noqdaan masaajida waxa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno Soomaaliya toddobaatanaadkii halkay joogtay kontonada uun baa ku tukanaya warodaydan carruurtoodii meeday magaalada ku jiraan dadka tukanaya waa maxay waa kontonada iyo pensionista Soomaalidu masaajida waa dhisaan midadka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay inay qalad tahay laakiin dadka kale ku amaanaana way sameeyeen Soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka Soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo Congress-ka Mareykan fadhiyo le Mareykanka xukuumaya Soomaalidan magal Soomaali qaxoontiyo shalay tayimi oo Ingiriiska u fadhiyo European Union-ka إن الصوماليات بوفرديا ولا برلمان كيوروبا نفرديا إنجليز كوانين إنجليز وبرلمان كيوروبا بوفرديا إن الصوماليات دور ديوله برلمان كوادن السودان أما كم بنكوشرا أما إن الصوماليات دول مير كمجال هبلايان هاي مراكن كوا ماشين مجالو يناي مير ركين هبل الصوماليات إن قبل الصوماليات أمول الصوماليات قبل ما يسقى بدن oo golaha deegaanada ee magaalooyin ku jira ma garanayo waxa siinay khayriin iyo inay shariyiin qofka deegaalada dhex araray ee waxay walaaqayeen la walaaqay ilaa xadka uu soo gaaro laakiin waxa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yiraahdaan nimankan waa niman active ma nimankii shalay tayimi iyo Congress-ka fadhiistay ama shalay tayimi iyo European Union-ka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan صدودو بيرسنت كاينا قالوا ما بيرسنت كاينو هينا اي وحقبت كاميد الدنيا ميد اخر بس كو درو كي بدن انا waxaan ku wada inta si libdaysa inay ka badan tahay inta joogta inta si libdays
inay ka badan tahay inta jooga waxaa laga yaabaa inaa aragteen laba saddex qof oo Yurub inta ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yiraahdo hebel Sweden buu ka yimi hebel Ingiriis ku ka yimi hebel Ingiriis ka yimi they were 1001 kunkii qof baa qof haysaan وميان ودنا ناني شوقين كونكي قف بقف وحيستا ميانو شوقين كونكي قف بطبنا وحيستا شوقا ودنا ضطن سوالي يقول يدي شوقا سوالي شوقا هدي لا يقول ضدك انت وحيستين انت وحيسن كونكي بويك بدين قف يلا بيا صدح يا بويك بدين لكن ضدك هالك شوقا markaad aragto mid baasaboor Mareykanka la yimid halkan company yar ka furtay ama mid Sweden ka yimid halkan company ka furtay ama mid Norway ka yimid war 42 kun baa Norway joogay laba aragtana intii kala maada 40 kale xaga kuma qatay koob iyo 40 kun baa la maqan iyo dheeraad xaga kuma qayin yani waxa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin dadku marka waxay ku eegaan hebel baasaboor mustaqbal heblayo ka war waa 1 in 1000 kama badna adoo dad si cararto 1 in 1000 ka inaad noqonayso mise 999 ka inaad ku biirayso labada probability ka aad u badinayso waxaan leenahay Yurub sida dadku haystaan maaha faqra ka jira wax la'aan baa ka jirta dhib baa ka jirta guri burburay baa ka jira caruur aan gacan lagu hayn baa ka jirta midhadh ilaahay caruurta u hagaajiyay waa joogaan waxoogaa quraanka ilaahay qaar qaybsiiyay waa joogaan oo laga yaabo inay musaabaqaadka caalamiga ah maqashaan inay qaadeen maraykan kale wax laga yaabo musaabaqa lagu qabtay 18 qof baa jaayisa qaadanay 18 kuwa Soomaali bay ahaayeen laakiin 18 markay jaayisad qaadatay 18 kunna jeelash iyo meel daran bay ka dhacday habsiyada iyo madhulaan la garanay marka waxa weeyaan waxoogaa dhankani waa jira mustaqbalku siduu u eeg yahay mustaqbalku wallahu a'lam siduu imika yahay haduu ku socdo ma qurux badna dii wax la bedelo garan maayo laakiin sidoo hadda yahay haduu u sii socdo iyagu buxuus ay sameeyeen waxay ku tilmaamayaan qoladan qaylinaysa le culture-ka isbedeli waxba isbedeli waxay leeyihiin maxba isma bedelin waxaynu sugaynaa un bay leeyihiin 3 generation dan dadka ka mid noqonayaan kan yimi ku dhalay ku sii dhalay un baanu sugaynaa bay leeyihiin 3 generation oo halkan ku dhashaa bay leeyihiin generation ka saddexaad aan European un bay leeyihiin ama hamadoobaada ama cadaade laakiin thaqaafadii iyo afkii iyo culture-kii iyo wixii xagga kala yimi wulumaya Europe markaan tagaan ogaaday af Soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af Soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqad diin xambaarsan waayo dhasha maanta Europe joogtaa ee Soomaaliyeed intooda badan iyo Soomaaliya way kala go'ayaan waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan marka way soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba ka garanayn kaas gurigiisii u haystaa adiga hadduu ku yimaado waa waageeni isma fahmaysaa inta waxa dheer afku inuu diin yahay cid wax u sheegtaba waa la laayay waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada Soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay Soomaaliga حتى أففك كله وحلقة يبيني فهماني إن أنا كهضل حتى أففك كله كو أخريا ما وحكو برتي إن يفهمان بالغة يبين أنا هين محي فلونت سبيكر اسمها سيدا أوجد جيلشان يدين وشيء إن كالصومالية ده النرويج كوكرام السودان كوكرام الدنمارك كوكرام الجرماني كوكرام الصومالي ما هيو هدوء في الصومالي ويا يودين كبرنا يا بايد كان يودين يا يودين برايا ما في عرب وبرتادو ما لين سيودين تكبرنا يو شاف النرويج الدين وقرنت ما يا حكومة الدين كبرنا يا كاسي كوسي دلم حبرايا كاسي والغا يا بمركو بابا ينادو هو يدا يو توك توكتا سو غاري لكن كياري مو سو غارين يعني مسلمين تي انقبضتي مثلا وطن كان لا يراهدو استراليا حقيقة كدنبيه مسلمين بدون افغانستان على قاضي اوروبا ودين انجليز كو ترنده ما هيسنين ترنده markuu dhisanayay geela salawatay geelan tirada badan leemka keynta lagu sii daayo Australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen waa darkii qof
family name kiisa saddexaad family name kiisa dambe uu magac muslim yahay laakiin isagoo aan muslim ahayn iyo wuxuu dhowtoona Soomaalidii South Africa la geeyay xagee ku dambeeyeen Soomaalidan Kenya meelaha waxa laga yaabaa inay ku sii dhawaayeen wali wadankii oo ay waladan East Africa inay wadanka si uun xidhiidh u lahaayeen Soomaalidii South Africa la geeyay 500 oo nin buu Ingiriisku geeyay waxba lagama hayo hal nin la sheegaa wax noqdo markii dambe Soomaalida ku soo noqdo intii kale iyo waxay dhaleen toona meel ay ku dambeeyaan lama hayo su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga ee meesha tegay mustaqbalkoodu sidoo noqonaya de waa laba mid in laga xoog bato la milo oo dadku si cad uma oranayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tagay laakiin wuu milmaya jiilba jiilka ka dambeeya uu ka sii diin yariyay ilan systemka waxbarasho uu galayo noloshu la kulmayo dadku la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo deynay sida u dhacdo iyo si kale mucjiso ayna u dhacdo taana rageedii lama haya wali ma aragde sida kale mucjisadii waa maxay weynanu jiilu saxaabo oo kala noqono dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushun min ad-du'aat inay yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadama bedelaya de hore way taariikhda uga dhacday وداد مسلمين هروا وسميين لكن دad كان هم الدينات بما سيدين markay meesha tageen mise hunguridoon bay haayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin aljund almajhuul lilislam dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yaryar oo gaalada ahaan jiray waa soo islaamaan laakiin inta inaga baxday inta islaamta ka badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada ka badan wali waxaad moodaa inuu badan yahay inta xaqooda u soo soconaysa muhaajiriintii hore muslimiinta wadanada tagay nawcun ma waa milmeen inkastoo aad hadda moodo fufkan dambe islaamiga inuu dib soo yara gaaray oo waxoogaa dadka hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn laakiin wadanada qaarkood waxaa tagay dad muslim oo aqoon-yahana مثلا maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha professorka ama waxa ka aqoon-yahan inay tageen halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska ummiyiin oo aan aqoon lahayn waa jira isbedel cusub oo dunida ka jira hadduu yahay isbedelka technology-ga ah oo xiriirkan technology-ga internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh waagii hore ma jirin ninka xaga ka yimaada muslim marka buu soo raaci jiray 3 bilood buu jidka ku soo jiri jiray bil afraadu wadanka soo gaari jiray hadii ba uu yimaado di kalena ma soo noqon jirin laakiin imika ittisaalku waa badan yahay TV-yadan internationalki waa tiro badan yihiin afafka dunida laga hadlay baahaya waa tiro badan yihiin waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan xiriirkan tirada badan la sameeyay raad ma yeelan karaa oo man idhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gadisnaanayaan waxyaabaha yaryar noocaas ee jira ilaahay lagama qusto subxaanahu wa tacaala dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan waa la isleeyahay wax bedela laakiin ilaa hadda trendku xaqu u socdaa ilama qurux badna dadkiina dhulkan joogana ee muslimkaana kuma taliyeen inay xaqaa qabtaan waayo waad iswaayi meel aad ugu sarraysaa joogtaa iyo bulsho aad ugu hoosaysaa baad u tegi Soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqira ama lama maago miyay ka aqli yaryiin miyay ka gadisan yihiin waa bulshadun baa dhaqan ka dhigatay inay maagto Soomaha waxaad u tagay bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto idan mahma aad adina reer hebel soo haysato saan isu taagayso bulshada agteeda waxa tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan
حتى مسلم كهدي لك كاتوريجريو ده مسلم كمدو مسلم كعربيد وكسي دمبيا سومها ده مقايستو ده مركان كو ياغلو marka adigu muslim baad tahay madow baad tahay qaxoontaad tahay faqiir baad tahay afartaas mid qura lagu nici karaa adigu afartii baad kulansatay hadday jiraan wax mambuud ka ah Yurub dhexdeeda waa afartan shay afartaba adigu waad kulansatay marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha hadda kama warramin nusuustii quraan iyo xadiis iyo ma bannaanta iyo ma bannaana toona idinka kama warramin baabkaasina waxaa laga yaabaa in badan culamada ka maqasheen taa kama warramin ee waxaan ka warramayaaba aragtidiinana xooladoonka iyo tacabirka waar waxoogaa baan soo xoogsanaya adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo inaanay ahayn beersantka waxelay markaa waa beersantka aadka u yar weliba beersantkaasina waxoogaa yar oo helo la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyey markuu hore halka imanayay wax may ahayn 30,000 40,000 buu la ordayay markuu halkan yimi laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay laakiin xagga wax ku noqon mayso xagga waxba ku noqon mayso marka waa mid uuna 40kii uu 10 sanadood ururinaya guri galiyay iyo mid 40kii uu ururinayay sidii warbal East Africa iyo meelaha la warwareegiyo Dubai iyo meelaha la tago wax ku rogrog laakiin kana 10 sanadood buu intaas soo ururinayay oo laga yaabo inuu double shift shaqeynayay inta ugu badan le midharka waxoogaa la soo cararay waa nimaan nasanin habeen iyo maalin lagu xamaalayay 8 saacadood xagga intuu galo 2 saacadood seexdo 8 kale meel kala galo 2 saacadood seexdo 8 waa mid saa loogu xamaalay waxaan xasuustaa ragga qaar yidhi 24 saacadood oo shaqo baan u galnay oo waqtiguba 24 baa la yidhi goormaad wax cuntaa kontaraagyadu saxeexa 24 saacadood ah maydhis baan galaa halkaasaan soo fiiqaa 8 saacadood bay igu siiyeen laakiin waan isxijiyaa 5 baan ku dhameeyaa kaa kalaan galaa 8 bay igu siiyeen 5 labadii saddexaad uu ka soo xaday labada meelood ayuu kontraak kale ku saxeexay dabeetana 15 saacadood oo 24 loogu qiimeeyo galaa ama 20 saacadood 24 waska waali uun 3 sanadood markuu waalida ku jiray buu halkan yimo uu yidhi waxoogaa baan la soo degay xagga maxaa shaqo bannaan laga baa mushtaray kara marka waxaan idin leeyahay war meeshan lacag fara taaltaalo la soo qaadaana ma jirto dhib aad u badanina waa ka jirtaa dhib aad u tiro badanina waa ka jirtaa bulsho kaa xoog badan oo kaa lacag badan oo systemkeedu dhisan yahay na ma wada waajihi kartid adigoo aan mabaadi iyo diimo iyo waxaad faafinayso aad ku dhegantay aanay jirin weliba dee rag waaweyn oo ducaada gartaya dumar iyo caruur iyo dad maato ah meel ay midho ka keenayaan ma aha waa meel Soomaalidu joogtaa aanay qurux badnayn haddana ay caamba ku noqdeen meelaha qaarkood ijraamka maxaad u malaynaysaa hal magaalo Soomaalida joogta hadday 60 iyadu iska dishay oo dhalinyaro Soomaaliyeed 60 nin oo dhalinyaro hal magaalo lagu aas 60 kaas inta ugu badan iyaga istilay cidna uma sheegin waa gangis kala noocay ku jiraan oo daroogiyo baliya baaska baa mushtareeya gangan baa xabad laga dilaayana waxba dawladdu ma ishtookana waxba kale yana mid kale dilayaan kuwana mid bay ugu qalaf siinayaan kuwana mid kale ugu qalaf siinayaan waqti yar bay 60 Soomaaliyeed xabaashi ku rideen waa hal magaalo oo Western kamida marka dee dadka inay u ducaysaan weliba astaamahan arkaya waxaa ka mid ah midhadhkii dhibta dareemay ama wax fahmay ee culimmadii wax sheegi lahaana dib bay usoo yaaceen waxay rabaan intay carruurtoodana ka kaxaystaan ay iskaga yimaadaan oo ay meelahan yimaadaan waraabaha iyabaa loo kala imanaya maxay iyo xaamadaa loo kala imanaya waayo nin waliba yaa nafsi buu taagan yahay marka inuu wax badbaadiyo daayo wuxuu yidhi waar adiga intaadu kaa raacin allahuma naxariistay annagaa nagu dari gaaray ma maqash Soomaalida waxay yidhaahdaan mid baa walaalkii la dilay aan fariid ahayn
dabeetana way tirtirsiiyeen waxay yidhaahdeen waar orodoo walaalka u soo aad markaa qoraal la siiyo waxa la yidhi doon wuxuu warwareegaba malaa kan kalena waa mid gaangistar ah ninkii baa meel la iska helo waa la israsaaseeyey lafihiisi buu kala soo baxsada waxa la yidhi waar ninkii ma dishay war alla ma naxariistaa annagaaba nagu dari gaadhay buu yidhi marka rag badani waxay yidhaahdeen waar annagaabay nagu dari gaadheen oo ka yimaadee intii wuxuun isbidaysayna dee dadkaa u duceeya wasala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin